halkani aan ku suganahay daawadayaal waa buundada qoraxay amaba qabalaha malka afweyn oo ka tirsan degmada Qabridahar ee gobolka qoraxay goobtani gebi ahaanba waa ay go'day oo waxa ku taalay kaabad yar oo markaasi ka sokaysa buundada weyn ee saaran toga faafaneed ee markaasi dhaxmara qabalaha malka afweyn waxaa gebi ahaanba istaagay isku socodka bulshada iyo gaadiidka kadib markii ay gooday kaabad amaba buundo yar oo ku taala buundada qoraxay oo u dhaxaysa Qabridahar iyo degmada Shilaabo kadib marka uu fatahay toga faafan oo aagaasi mara fatahaada togan ayaa imanaya kadib markii ay xidhantay buundada qoraxay oo uu hoosteeda amaba hareeraheeda uu ka baxay geedka garanwaaga caradii togana oo qabtay waxayna sababtay arintaasi inay jufanto halka ay biyaha ay marayeen isla markaana biyaha xoogoodii ay banaanka ay u baxeen haddaba bulshada degan aagaasi ayaa xukuumadda deegaanka ka codsaday in laga hagaajiyo amaba laga dhiso wadadani buundada weyn ee qoraxayna laga caraqaado maadaama ay tahay meesha ay caqabadu ay ka jirto anigoo magacaygu yahay Cabdi Shaafi Cabdi ahna maxaan ku dhahay odayaasha kamid ah deegaan qabalaha malka afweyn ee gobolka qoraxay waxaan halkan ka sheegayaa in ay buundadii qoraxay inay gooday kaabad kamid ah inay gooday oo bulshada adeegii ay loo kala adeegahayay inuusan tootile wax soo adeegayso jirin degmooyinka gobolka qoraxay qabalayadii degmada Qabridahar dhammaan way kala go'an yihiin ee wadadan laamiga la haystay marka waxaan u sheegaynaa xukuumadda waxaan u sheegaynaa gobolka waxaan u sheegaynaa waxaan ka codsanaynaa cid kasta oo danaynaysa in ay maxaan ku dhahay ay wax naga qabato maxaan ku dhahay waxyeelada biyo ay keensadeen waayo buundadii u horeysay kaabadii u horeysay buundada ka sugaysay baa go'an marka kuwa hadda ka hor go'anaana way ka sheeyeen iyagana marka tan markay saddexaysay runtii dhammaan way istaageen wixii adeeg ahaa ee bulshada maxaan ku dhahay u kala gudbahayay ee gobolada kala geynayay haday xoorihii ka faafay yihiin haday baabuurtii adeega geynaysa degmooyinka iyo maxaan ku dhahay qabalayada haday yihiin totally way istaageen marka waxaan xukuumadda ka codsanaynaa in maxaan ku dhahay gacan laga siiyo magacaygu Maxamuud Axmed Wacdi baa la yiraahdaa waxaan ahay odayaasha gobolaha malka afweyn waxaanu sheeganaynaa dhibaato weyn baa annaga reer ahaan awal gaar noo haysatay barakacii saddexaad baanu barakacaynaa eegana gobolkii oo dhan bay saamaysay wadadii halbowlaha ee gobolka qoraxay bartamihiisa isku xudhaysay yaa go'an maanta waxaa biyaha gooyeyna waa biyo aad u meedaan culus buundadii horena halis bay ku jirtaa buundadii qaaqadii baa xidhay togii baa xidhmay wuxuu togiiba marayaa buundadii gurma degdega oo wadada iyo buundada iyo kaabadaha go'ay intaba howlgal ah yaanu codsanaynaa adhankooda gudoomiyaha maamulka gobolka qoraxay mudane Faad Yuusuf iyo maareeyaha maamulka magaalada Qabridahar injineer Cabdi Maxamed Baaruud oo ayagana kormeer halkaasi ku tagay ayaa sheegay inta ay biyuhu ay socdaan in waxba aan laga qaban karin balse la raadin doono halka ugu dhow ay wadadani ay ku furmi karto waxaan booqasho ugu nimaadnay anoo injineer soo kaxeeyay meeshii gooneed si aan xal ugu helinayn isku socodka bulshadii kala gooneed ah degmooyinka gobolka qoraxay sida Shilaabo Dhooweyn iyo Ceelogaadeen saa darteed degmooyinkaasi siday u helaayeen access ama wax adeegooda ay ku helaan oo ay u maraan ayaan rajaynaynaa insha Allah dilaarado waana aragtaan waxaan aan dhex taaganahay waa laamigi bartanka ayuu ka go'ay bridge yar oo meeshan ku jiray yaa go'ay saa darteed bridge-kii wuu go'ay laamigi hadda irgada biyo baa sii qodaya biyo kadib mar kasi dambeeya way kasi badanayaan oo way sii qodayaan marka insha Allah dilaarado xukuumaddana waan la wadaagnay wixii xal ah ka maamul ahaan gobol ahaan iyo ka deegaan ahaan iyo ka maamul magaalo ahaan injineeradii intaan isku kaashanay waxaan rajaynaynaa insha Allah sida ugu dhaqsaha badan inaan u sameeyno xal runtii maanta meesha aan taaganahay ku sugannahay waa wadadii isku xidhaysay Shilaabo iyo magaalada Qabridahar runtii waxaad dareemi kartaa wadadii oo halbowle u ahayd wadada isku xidhaysay labada magaalo oo waliba ay jiraan degmooyin kale oo Dhooweyn iyo Ceelogaadeen iyo access u ahayd wadadan go'itaankeeda sababo badan baa soo jiray hadda roobka daay sanadkan waxa roob aad culus baa kaasi wuxuu sababay buundada qoraxay buundadii la dhigi jiray oo ahayd buundo aad u weyn inay biyihii dul marayaan ilaa hadda aan socono biyihii dul marayay awoodii ahayd markii meeshii ay ka baxay geedka la yiraahdo garanwaaga
oo inta badan dhulkan qaatay yaa wuxuu sababay inuu carradii qabto buundadii baa waxaa yaraaday biyihii soconayay iyo waxaa xidhmay iyo buundada hoosteedii geedkii xidhay darteed baa waxay sababay biyihii inay meelo kale ay ka baxaan ay ciidii ku noqoto halkan kaabadii ku taalay waxay noqotay marka biyihii awooddoodii inay jabiyaan waxaan oo dhanna waxaa sabab ahaa qorshihii lagu sameeyey marka aad fiiriso biyo xidheenka oo ahaa istaadigiisa iyo daraasaadkiisa oo meelo badan laga leexiyo biyihii ayaa wuxuu sababay dhulkii inuu noqdaan dhul badan oo biyo jiifta ah noqdo geedkan uu si dhib yar oo ku fidi karo waxaan is leeyahay marka caqabadahaas soo jiray maanta biyaha mar walba da'ayana ay sii badayaan magaalooyinka ka imanaya ilaa kor ka da'aya ayaa waxay sababeen biyihii cadaadiskoodii buundadii weyneed oo xidhantay inay biyihii pressurekoodii ay jabsadaan marka kaabada tan ma aha tu horoo jaban baa jirta waa tii labaad ee jabta weeyaan ee gooda taa hore roobabkii hore ay gooyey ilaahay haddana waddo la marayay ma ahayn waxaa la sameeyey meel caradhiga oo la dul maray noqotay maanta laakiin waad aragtaan tan sida ku goday waxay noqonaysaa marka gurmad degdega bay u baahan tahay oo ah in la sidii lagu qabtiri lahaa bulshadii socodkii bulshadana mar labaad loo socodin lahaa ma arko hadda ima muuqato wax fursad ah oo hadda si degdega loogu qaban karo xukuumaddu waa inay marka dadaalkii iyo shirkaddii samaysay mar labaad loogu qayrsan lahaa waxay noqonaysaa in mar labaad biyuhu markay yaraadaan in geedahan sidii lagu guri lahaa sidii buundadii hoosteeda lagu nadiifin lahaa ee biyihii mar labaad ugu noqon lahaayeen ruudkii ay lahaayeen ama waddadii ay lahaayeen lagu celin lahaa tanna markaa kadib lagu samayn lahaa dayactirkeedii ama dayactir lama dhigi karo sidii dib haween loogu samayn lahaa si guud ee loo soo celin lahaa marka waxay noqonaysaa arrintani arrin u baahan si degdega in wixii looga qaban karo looga qabto si kastaba ha ahaatee goobtani go'day ayaa waxaa injineero tagay ay caddeeyeen in hadda waxba aan laga qaban karin inay biyuhu istaagaan mooyaane islamarkaana la dhiso taasina waxay caqabad weyn ay ku tahay dhanka isku socodka bulshada iyo gaadiidka maadaama ay waddadani ay bulsho badan oo degan degmooyinka Qabridahare Shilaabo Dhoboweyn Ceel Ogaadeen iyo Higloley ee gobolka Qoraxay ay adeegsan jirtay ma ahan markii ugu horeysay ee kaabad noocan ah ay go'do kaabadooyin dhowr ah oo markaasi ku teedsan buundada weyn ee saaran toga faafaneed ayaa maalinta ka dambaysa go'aya waxaana sabab u ah tayada markaasi waddadani markeedii horeba loo sameeyey Lumaan Cabdi Axmed SRTV qabalaha Malka Afweyn degmada Qabridahar gobolka Qoraxay